ciyaar sharafta la markasta dunida ka joogtaan waa in salaam ay kusoo dhawaada youtube channelka sirta quruxda dabiiciga maantana waxaan idiin wadaa wax yar inaan ka iraahdo oo aniga jeclaystay inaan kasoo hadlo gabar walaashay oo la dhaho xaasi hooyo iyo yar kala dhaho king siki oo aan ku xirnaa janaalkooda muddo weliba gabadha xaasi hooyo muddo badan aan ku xirnaa marka insha allah video ay labadooda wax yar isku maandhaafeen ayaan dhihi karaa maandhaafnina hadalka si u yiri baalina si u qaaday inaan wax yar fikirkayga anigana insha allah aan kasoo hadlo runtii ma jecla inaan kasoo hadlo balse gabadha dhowr video ayay soo dhigtay midka hore xoogaa hadalada waxbay soo titir haddana mid kale soo duubtay kan dambe weliba iga soo hadalsiiyay aniga insha allah marka waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar anna wixii aan ka fahansanahay insha allah diiniyan aan insha allah uga soo hadlo oo walaasha yaabo baa jirto qof bini'aadamka la rabo inuu hadaad qaldanta ama wax kaa qaldameen ama special markii dhanka diinta ay timaado la iska saxi karo qofku wuxuu kugu dhaamo uu kugu soo kordhin karo soo sheekadii ay kaga soo horboodinay gabadhan la dhahayo xaas iyo hooyo waxay kasoo hadashay video kasoo samaysay reaction gabar la dhaho deeqa aafaro oo aan wada naqaano oo fanaan caana oo maalin dhaxaasna videogeedii caalamka dhan qabsaday yacni oo video waxoogaa aan fiicnayn bulshadeennana macnihii waa la soo heesi jiray fanaannimana waa la samayn jiray laakiin bulshadeena ay ka wada qayneen because of ma fiicnayn qaabka videoga loo soo duubay gabadhaas haddana video kale soo duubtay ee dhehayso aniga yaan la aasin ama la iduugin haddaan dhinto qabriyaa la gelin qabrigu waan nacbanahay sidaa daraaddeed geed korkeeda sii isaara macnaa waan ka cabsadaa maba ay dhihinba waan nacbanahay qabri in la gasho tiri waan nacbanahay I just hate in qabri la gasho I don't like maxaa la dhihi jir geed korkiisa hala isaaro cadar yaa la igu shubin yaa la meerin meedkeyga yaa la dhaqin macnaa hadii la dhaqana hal naag un hay dhaqdo yacni geed un hala iska kaysuro oo halaygaga dhaqaajiya tiri subxaan allah horta aniga youtube channel dhawaana kusoo biiray mana ka hadlin gabadhaas badana anigu kama hadlo reaction kama sameeyo badana videoyaasha ani badana videoyaasheeda isqurxin caafimaad iyo waxyaabo noocaas ka hadla laakiin ma mar dhif wax iga yaabay marka arko bulshadeena u baahan in wax laga qabto yaa wallahi waa ka sameeyaa reaction video so tan amal gabadhaas kama soo hadlin waxa uga soo hadli waayay because waxay ahayd arin oo shocking ah to me aniga shocking ay ahayd waxa diinteena khilaafsan ay samaysay gabadha qof dhahay qabriyaa la gelin war qabrigan horta sideeda banaanba ha ma aha wax la isku baryayo qabrigan ilaahay subxaanahu wa tacaala waajibna saaran waayo waa qabriga waa meesha qof kasta oo muslim oo dhinto ummadii naga horeeyay islaamka ahaa nabigeena sallallahu calayhi wasallam oo khayru khalqullah asxaabta kulli la wada gasho marka adiga oo bini aadan ah oo weliba dadka hadda adduunka ugu dambeeya aakhir zamanka ah inaad tiraahdo ana qabri ma la gelin karo muslim baan ahay يعني I don't understand قف كده ضاني مسلمي هي وان قالوا كريستيان بقى كريستيان كسر الله سماه الله يلا هلا يلا هدي هلا جوا معرك هلا يجي أما سيد هندي وكل هلا يجي بدو قف كده هو ماشي لكن مسلم بان هاي اللي فيريا قبل أساس هذا قولت تيق أفر أما مسلم لكن لما أسكره لما أنا دخل كره لما أنا عارفين كره لما أنا كفر كره سرق إيميلها كفنت مركي قف كل حراي وحاسد إنه واحد سو أروري وواحد واجبة إلها آيات كيس حد حديث تسنك سو أروري إلهينا نفري waxaa jirto wax sheeko iska ah iyo wax ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka timi oo waajiba oo diiniin ah oo nala faray soo islaamnimaa sheeganaysa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku faray uu ku waajib yeelay ayaa intaa meel soo istaagtay khilaaftay andanna waxa waaye dad baa ku saboorti karaya sida gabadha xaas iyo hooyo waxay tiri gabadhaanay tiri waxay ku hadlaysa qalad ma aha yaan la jaaj garaynin yaa la jaaj horta gabadha xaasi hooyo la dhahay abay macaan horta in wax mararka qaar la isku sheego ceeb ma aha xoogaa wax sheegid ba u baahneed adiga sababtoo ah qaabka reactionka gabadha uga sameysay videogeed absolutely ma ahayn qaab diiniyeysan wax mar haduuba diin ay qusayso qaab cilmiyeysan uga hadashay adiga yani qof wax hadii marba diin qusayso diin laga hadlaayo if you don't know about anything about diinta that much hadaadan garanaynin just don't talk about it simple as that because diintu maaha wax lagu ciyaaro maaha wax lagu kafkaftamo maaha wax qof intuu meel iska soo fadhiisto iska sheego ama okay waxaa tiri aniga waxba kama garanayo haddana wax waa ka sharaxday sababtoo ah somehow gabadhan waa support garayso waxaa tiri gabadhan baa tiri
hadalkeeda waa ku support gareynaya ilaa hadda xataa video kala soo duubtay waxaan uga soo hadlana saas ahayd videoga hore inaan ka hadlaa dabca waa iska dhaaf haddana mid kala soo duubtay aa ku adkaysanaysaa leedahay I support deeq afar waxay dhahday sababtoo ah gabadhan fear baa haya cabsi waxay qabtaa wax la dhaho claustrophobic wax la dhaho oo qaab cilmiyeysana u sharaxday sidaa daraaddeed xitaa talooyinka aasiisa waxaa ka mid ahayd inaad u tagto dhakhtar iyo waxyaaba noocaas ah marka hadalkii ayaan kasoo kala boodboodin bointiga muhiimadda meeshaan taalo khilaafka meeshuu ka imaaday adiga sikay waxa waaye abaayo marka aniga qiimeeyey abaayo adiga qaab cilmiyeysan wax gabadhaan qaab cilmiyeysan baa wax ugu sharxday laakiin qaab diiniyeysan wax uguma ada sharxin bilcagsi wax gabadhaan diinta khilaafsan ee ku hadashay waanu ku support garaysay that is macnaa sikay wax kasoo hadalsiiyay aniga to my understanding that is sikay wax kasoo hadalsiiyay sikay nin dhalinyaro waaye food wuu leeyahay yes videoga ugu dambeysaa sheegtay wuxuu doono dhalinyaro waa wuxuu doono sameeya laakiin somehow isaga diinka ma hadlo diintana ma soo faragashto ya wuxuusan diinta aqoonina ma soo pointi garay marka adiga maadaama aad meesha soo gashay oo aadna gabadha walaasheena oo diinta wax khilaafsan intay tiri aa support garaysay somehow ma fiicneen gabadha yes waxaa tiri yaan la ataagin yaan la judge garayn okay ma xumo gabadhaan ma judge ilaah baa horta xukumiya ma xukumeen anaga mana dad inay caayaan ama aflagaadiyana waxaan raalli ka nahay ma ahayn laakiin absolutely deeq afar waxay ka hadashay waxay ahayd wax munkar ah wax qalad ah wax ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisa kasoo horjeedo iyo rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ma aha wax lagu taageera abaayo qof dhiig iyo damiir la oo islaamnimadu ay wax yar ay ku dheer tahayna wax uu ka danqado waay absolutely marka adiga waad support garaysid that's why uu BK CK uga soo hadlay sorry haddaan magaca qaldo CK King CK waa taageera YouTube channelkiisana waan ku xirnahay reaction uu sameeyo wiil Soomaaliyeed oo walaalkeen ah sida adiga aniga xaas iyo hooyaan ka hor ku xirnaa runta markii laga hadlo xaas iyo hooyo ayaan ka hor aniga ku xirnaa aniga shakhsi ahaan CK iyo xaas iyo hooyo ii horeysay aan weliga ku xirnaa jiray YouTube channelkeedana aan daawan jiray weliga CK hadda igu cusub yahay ha ahaatee laakiin CK boontigu kugu haysto walaashii adoo gacalka iska boobin videoga ugu dambeeya soo dubtana waa arkay adoo xanaaqsan xoogaa ma garanaysaa inta walaashii isdejisid boonti wiilkan kugu haysto waxa waaye qaabka wax u sharaxday qaldana taasoo ay macnaheedu tahay ama qaab darna aan dhahay qaldana ayaan ku dhihin qof lamaba dhaho waa qaldantaa because ma fiicnaba laakiin qaab darna wuxuu ku qaabtanaa because somehow gabadha waa support gareys the other thing waxa waaye waxyaabo kale ka hadasho waxaa tiri qabriga aniga ma jecli okay gabar walaashii xitaa waxaa jirta nacab qabriga oo waxay tiri waxaan nacbanahay inaan dhinto ama nafti ka dhacdo anoo hurdo kadibna aan qabriga kasoo horbaxo kasoo dhex baxo maxaa la dhihi jiray taasna waa wax horrible ah tiri it's horrible ah tiri because gaari hadduu kugu dhaco digniina helaysaa ayaa tiri laakiin haddii qabri aad adoo hurdo ee nafta kaa dhacdo digniin laguma siin waxba laguma siinin waa ana it's horrible ah tiri marka abaayo somehow qaabka oo hadasha ila qaab darna aniga just gabar walaashaa wax kuu sheegaysaa ahay mar haddii diinta laga hadlaayo waxaa habboon qaab wanaagsan waayo dad badan baa kugu xiran yes YouTube channelka dada lacag ka sameeyo yes views badan waxaa lagu kala helaa yes but still iyadoo taasi meesha taalo waxaa taas ka muhiimsan aniga saan u arko dadkan kugu xiran fikirka ay qaadanayaan markii adigoo diinta si fiican u garanaynin oo aad soo gashid meesha oo gabar walaashaa fikir qaldan diinta ka aaminsaneed adigana aad ku raacdid dad badan ee taas maxaa dhihi jiray ee u noqonaysaa wado because rasuulka sallallahu alayhi wasallam ma soo noolaanayo uu dhintay ma fahamte waqti xunaa la marayo aakhir zaman ah dadkii way maray habaabsan yihiin dhalinyaro badan oo iska daa dibadda dhalinyarta ka kortay waxaas Soomaali dhexdeeda dhalinyaro waxaa jirta aan diinta fahansaneen soo markii YouTube channel intaasoo kun oo qof adiga ay ku daawanayso aad kasoo hadashido qaab aan diinani ahayn ama qaab shaka ku jira aan diinta waxba kama garanay laakiin qabri aniga waa ka baqaa because it's horrible in lafta ka dhacdo ma aada sharxin hadda videogaaga dambe xoogaa waa ku soo sharaxay waxaa tiri maxaa la dhihi jiray aniga maxaa la dhihi jiray qabriga waxaan uga baqaa because qofaan qabri ka bixin ma laha oo xisaaba ku sugayso saas marka hore maadan ina baayo that's why CK uga soo hadlay saas ma aada u sharxin wax that's why khilaafka iyo hadalka meeshaas uu ka imaaday in lagu saxana ceeb maha in wax la isku sheegana ceeb maha abay macaan gabadha waxaa kaloo ku tiri waxaa tiri dhakhtar aad marka ani kiiska aan fiiriyo maxaa la dhihi jiray gabadhan lahayd deeqo afro gabadhan deeq afro dhakhtar maanta uma baahna deeq afro waxay u baahan tahay in la dhaho walaalay macaanay ilaahay ka cabso dhibaatada waxay kaaga imaanaysaa waxa waaye ilaahay kuma xirnid heese qaab darna qaaday adoo aad u qaawan iyo jirkaaga dhan banaanka yaalo wax ilaahay
raali ka heenaa samaysay haddii hadda maxaa lihi jiray hadeerna waxaa la imaada wax haboon ma aho qabriga la gelin geed hala isaaro abaa ilaahay u noqo ilaahay u toobadkeen qur-aanka aqriso fiir iyo cabsi claustrophobia hadaa maqashid waa cabsi ka imaatay min shaydaan saani aniga u fahamsanahay saani u aaminsanahay waay shaydaanay ka imaatay cabsi sideeda banaa shaydaanay ka timaada claustrophobia dadka aan fahamsanahay waa cabsi ka imaada dadka cabsada mugdiga badda dabka waxyaabo noocaas ah ma garatay laakiin qabriga wax laga cabsado ma because waa waajib min Allah subhanahu wa ta'ala wax lagu tilmaami karo maaha claustrophobia ama waxyaabo noocaas ah because ilaahay kalaamkiisa ma aha wax oo sheeko soo galaya ma fahantaa baa daas sikay wuxuu uga hadlayaa markuu laashii arintaas adiga taas aad ku qaldantay inaad gabadhan qaldan absolute diinta wax ka soo horjeeda sameynaysa aad ku taageertid aan waxyaabo cilmiyeysan aad ku fasirto hada waxyaabaha u dhacaya waxa gabadhan haysto waxa waaye shaydaan waay ani that's all I can say shaydaan waa gabadhan waxa haysta waxa qaldaaya waxa because shaydaanka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu wacdi la soo galay ma fahanti waad garanaysaa aayadka quraanka iyo diinta sida ay sheegto waa taqaana marka shaydaanka wuxuu adduunka u joogaa inuu dadka marhawaabiyo oo waalo gabadhan waxa waalay waa shaydaankana waxa kaliya the only thing ay uga hortay karto iskaga naari kartana waa aayadka ilaahay quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ilaahay quraankiisa nooga sheegay oo wuxuu dhahay ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu idin yahay shifaa aayadna ku soo aroortay hadaan aayad qaldin aayad waxay ahayd وننزل من القرآن ما هو فيه شفاء ورحمة للمؤمنين وتاسم معناها تهاي قرآن وحكى الأمة سود الجنين الدنيا ذكر كذا إلا إن أنقطه عافمات شفاء إن أنقطه ضدك إلهي رمي مركز هذا دراد الأبايا معان ما هينا ترى دكتور آدي كان آد دكتور وحكى كما قبان كرو قف قبرك عب صناعي ما فهمت إن إلهي أنقطه أم بحكى قبان كرو إن إلهي أطبت كانت بحكى قبان كرو إن إيمان كذا أتكيسه يعني إيمان كذا ضعيفة هذا الكسكير سينا إيه الشيطان أو كعد كذا أنت أصلا بعني كرا مرك أديك أنا أذكر على تاس أيا سيكي أوجه الله مرك اللي قد صوتك سيكي إنه لنا يريه وصدوا دون ولا بيستصدوا دون وحدر سمي كل جن دم بوانا قد دم بيجين دمان دم بيجين الله دافع لكن السجا وح كهذا السي وح هاد دينتي هدي مرة ماشي صوت الشيء أو أذن أديك ودينتي أبايو حوجها مقارنة سوا وح إلهي سبحانه وتعالى ممنوع أما إن حرنتنمي قفكو هاللايو أما واجب إلهي فرد ديدا إن تاجرتد ولا فعنا ما هبونين anyway ويدا كان على دنبي أديك أنا قاب ديني سوي ماذا شرحين تاسع دبعتك الكيد أنا قبل تاجرت هنا حوجات هذا قبل قلد اسمه محاتري مد أنا أنت كيس كذا وسبورت جرانا يا because قبلنا وعبسلوسا قف قصتين وعبسلوا واي قبلنا قبرجا إن كم عبسلوس ما يسند الفيري هذا الك ومرجي قف بقصده هو واي ما يسدين أنا قبرجا وح بقايا because محله يجريين وإله الحساب تماي because عذابك بقايا because وأقنا قبرجا إن عذاب ماشي أي حسابتك بلاوتينته قبرجا وماشي حسابتك بلاوت ما فهمت ما يدهن أنا حسابك بقايا وعبسنا يا سيلا ما يدين ووارنين ولا طلعين ووعدلين لا يقول no I don't like قبري I don't like إلا يحرحره سرك يقعمها يكفتن إلا يحرم إلا يميرو وواجباتك إلهي سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وسلم غير قرق الله آيات تاسل قسمي هذه محاود ديدي ابن آدم أو محله جرين وقت كان ما أنت حن عن جوجنا ضعيفة إيشك واي ما تدي كرتان نو ما تدي كرت because واجب لا كفر if you are Muslim والودوغا أبايو ديد أما هديدين because تلو جينا مركل لقى صوت عذرا كدلنا أي محل يجري سكبر ولا شيء يكون شرح ذي يا because وحلو ديدا بتري وان فهسنا عذرا كدلنا هبها is not that كيس قصص معها وواجب من الله ويا أختي إله كفري تاسرتو أنا أساس هذا الشاقفك هذا الكوائنو مركل الدين تمادو لبا علمي أجر علمي مادي علمي ديني مركي ماشي دين تاعنا قاب دينية سواء أنا هذا الدينين وهالذينين إنه هذا كي كان حماني جماعة والله أبايو هذه واحد دين قصاب سن إلهي سبحانه وتعالى القرآن كيس إتهاي هذا قاب كاس وحكوش شرحين إسكامس because قبري على جهة الله ما قاب علمي سن ماشي الاتمادي قبري ما قالوا قاب علمي سن it's no that's what I believe والله قبري ما قالوا قبري جوح هواي آيات بدنا قصة أروري ما القرآن كيسو نوجش حد حديث نوجش مالو بنوجش إن قبري جلوس حسابنا قبري إن لقول إني مستته مست
marka ma wax sheeko galaya baay ama wax la dood ka dhalan karto qaab cilmiyeysan lagu fasiri karo waa ka cabsanaya fiir waay iyo sheekano noocaas aaron garid wala ta kale waxaa tiri dhimashada waa walaalka wuxuu ku yiri dhimashada qof loo diga mala waxaa tiri video hore waxaa ku tiri qofka haduu gaari ku dhaco waa loo digooyaa laakiin markuu isagoo hurdo soo boodo isagoo hurdo uu nafta ka dhacdo yani ma loo digin what is that mean aaron garid wallahi because hadduu gaari kugu dhaco ka war wadna isla markii ku istaago aad isaas ku dhimatid oo aan qara ku aadin ma lagu digay yaa kuu digay markaas midda kale waad isdigniintan aba ee ka hadlaysid videogaaga kale xataa waa kaga soo hadashay fiiriya waxaa tiri yes digniinta aad diidan tahay way jirtaa dad baa loo digaa dhowr bil ka hor aad tiri fiiri ilaah kugu dhaarshay stiil waxaa ku socotaa wax qaldan oo diinteena shubaha iyo shaki gelina abaa ilaahay ka cabso wax waa la isku sheegaa ani qaldigama xumaan maabi inaan si يعني حوجة aggressive oo hadlaa because damirkayga ima siinayno waxyaabaha qaar xumaana igama ah maadaama adi waxaan social media soo dhigtay waa ina social media loogu xaliyaa way kale loogu xalin karo male because dad badan kugu xiran adiga waxaan waa la daawanaya marka walaashi yaa loo digay anaga rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam nooma sheegin cid baa loo digay xitaa asaga in loo digay anaga nooma u sheegin maybe ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr qalqullahi waa inuu u sheegay si secret ah we don't know but عن رسول كان صلى الله عليه وسلم والدي ودمنا يا أوجاد عندنا مو أصلا لهن يا you know وأتا أوجد مركو رسول صلى الله عليه وسلم تسحات يقولني الشوك قري شوكين كدعي أو عمر مية محل يجر وحناقة أو سيفقات وضد كلاي حديث أصلا أباي مسؤول جسنا مية مركي يا لودي رسول كان لو مدقن يا لودي دقني أنت أشياء قصد بقول لودي محل أباي ما بي wax kala belief garaysantahay ma bi diinta si fiican ma taqaan abaaya ma bi adan naftirkaaga hadalada ku hadlaysid ma macnaha yani waa iska xanaaqsantahay waa iska dhahoosa but please dad badan ku daawanaya abaaya ma fiicno waxa de marba diinta qusayso inuu shaki galo in dadkan waxyaabo qaldan laga dhaadhiciyo cid loo diga ma jirto iyo diinteena cid ay tiri nafta markii la iska qaado waa la isku sheegayaana ma jirto cid loo sheegana ma jirto videogan aad u dheeraada ma rabin because debate kan macna topican waa wax u baahan hours laga hadlo because waxyaabo badan xooga abaay dhanka diinta khilaafaad baa jiro oo diinta markay timaado wax shaki waxaas qofka duu qaldan yahay wax waa loo sheegay walaashan anagu wax ku sheegayno ilaahay dartiis waxaan ku fahansiineen walaashay qof loo diga male qabriga waa waajib waa la wada galaya kulligeen qofka diiday qofkan diiday xisaabta waxna wada sugayso waxaas dhan in ognahay waa basic laakiin some people ma garanayaan so in loo sheego oo wax ma bi inay garnaa xogaa laakiin ma bi waxba ka qaldan in la toosiyo wax isku sheegan qalad maaha si keen intaas ay ka ahayd inuu macnaha ku sheego inaad macnaheedu gabadhan qaldan inaad adigana la sii safatid saasa aaminsanahay marka walaashay insha Allah isoo sax dambigan dhamaanteen Allah dhaafo qof perfect ma jirto diinta markay timaadana waa lagu kala badiyaa waa lagu kala fiican yahay anaga naftirkeena manhi wadaad caalim ah marka abay qofka haduu diinta kaaga iskaga fiican yahay ceeb ma aha in wax la isku sheegin dambi maaha because diinteena na faraysa in la isku sheego wax diintana la faafiyo anaga dhaxdeen hadaa isixin istoosin diinta isfarana cid oo macnaha noo sheegaysa malaha meeshan waa social media dad badan oo isdaawanaya marka siikay ku saxay anigana insha Allah inta ka dhiman aan ku dhameystiray siibo waxyaabihi videoga kale ah kusoo duubtay wali ah kusii adkaysta tiri ani still waa taageersanay gabadhaas iyo dad baa wali loo digaa inay dhimanayaan waxaas waranta iga hadalsiiyay aniga aan u arkay inaan ka soo hadlo marka walaashay saxan ku dhihi lahaa naftirkaaga hadii aan diinta si fiican u aqoon ama aadan wax badan ka garan ceeb ma aha qof walba maalin diin barta rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam intaana loo soo waxay inta uusan rasuul noqonin أمي لا يكتب ولا يقرأ ما فهمت كذب يا رسول صلى الله عليه وسلم ملك الجبريل وحبر معنا أنه قار الحرة أيام نقبر الدين مركي كسود جيسي سورة أورس رسول كان لبسود جي صلى الله عليه وسلم وحيد اقرأ ما فهمت marka waxyaabahaas dhan anaga waagaan yareen siirada ku soo qaadanay oo alxamdulillah waxa ku socon waa intaas laakiin wadaad manhi diinta wax badan kaama badino laakiin inta yarta aan soo baranay shalay aan ku soconnaa waxyaabahaasna marka waxa fiican hadii qof walaalka wax dheertay inaad u sheegtay marka intaas aan ku sheegayno walaashan xumaanaha oo arkeen qeyb far badan ku rajeynay video waa dheeraad amray la soor inuu dheeraad marabin walaash isoo sax insha Allah hadda kadib diin markii laga hadlaayana at least dad aqoon xitaa ka aamus ama research badan soo sameey oo baaritaan ku soo sameey wixii aad fahansanay soo fahan kadib adoo fahansan dadka loo imo because this is social media everybody is watching you especially you dad badan ku xiran si keesoo kale dad badan ku xiran asagana wax sax ay ka ahayd wax kala ma ahayn meesha mataal hadalkii kooban oo koomba ku jiro
khayr iyo baraka idin rajayna dhamaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.